magaca corneyl marka la yiraahdo ma kii ciidanka darajada ahaaba mise waa iska naynaas sawirro badan baa laakiin sawirka markaan ku guuleystay waxa sawir la xiriira dhanka culture-ka oo ah inaan saaxiibanahay xoosh la yiraahdo oo hoggaanka hayo awr tiro badan aan sawir uga qaaday anagoo joognay magaalada Jariiban dhulka intaad mareysay xagee kula cajiibsanayd oo runtii aad ku soo jiidatay hadda Soomaaliya caqabadaha ugu badan jira xawee dhulka aad ka quruxda badan dadku inay u dalxiisaan haddii aad macdina tagtid mar labaad inay aadid kugu adkaanaysa series runtii xilli habeena 8 saac habeena badda fuulnay dabaalna ma noqdo baduna waa kacsanay doontii xagga u booday soo dhacaysa awaal habeenkan la socdo gacan buu ka murgacan gaaray oo dhaawac ka gaaray laakiin wax weyn ma ahayn marka maxaad hal iyo laba nooga sheegi kartaa caqabadihii aad inta sawir qaadaha la kulantay haddana saasoo tahay ma ka cabsanayno dhalinyaranimada waxa weeye qofku waxa halis u bareeraya asoon wax badan fiirinayn marka inta badan waxa isticmaalnaa anaga dadka sawirada qaado yaqaan ninja walk wax la yiraahdo oo sidii ay was gaaminaysa lugtan dhutinaysa waa loogu talagalay 6 bil in lug laga hayo oo waliba ka soo gaaro calaha muuqaalada duubaya wax badan oo qalbigaaga laftirkaada aad ku dhiiran jidhay awal marar badan hadda dib uga goranaysa aad iyo aad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا ونكسن داود يالكون سو دوادا مركله iyo barnaamijkeena Faris podcast waxaan idin daadihin doonaa aniga Faris Adam daawad yal toddobaadkan waxaan barnaamijkeena marti noogu Abshir Cabdullaahi Abshir Corneyl oo ah runtii sawir qaado Soomaaliyeed sidoo kalena ah content creator ama sheeko sameeye Abshir farxad bay noo tahay caaw inaad marti noogu tahay barnaamijkayga soo dhaw waa mahadsantahay Faris inaan Faris podcastina aan caaw marti ku hayadii farxad gelinaysaa waliba in aan saaxiibanahay oo isku xirfadnahay wandhow magaca corneyl marka la yiraahdo ma kii ciidanka darajada ahaaba mise waa iska naynaas Faris horta aad u mahadsan tahay su'aashaas marar badan bay igu soo noqnoqotaa ana waxa la yiraahdaa inta badan social media waxaan ku maraa AC Corneyl micnaheeda wax kala ma aha waa Abshir Cabdullaahi Corneyl dad baa wax kala u mooda laakiin waa magacayga soo gaabiyay Corneylna waxa weey family name ee maaha magacani gaari ah aniguna ciidan meeyi marka waa naynaas haalan harista aaba magaciisa kala Cabdullaahi Corneyl la oran jiray marka ana Corneylkii waan qaatay laakiin waa family name aad waxaad iga warantaa bal dib aad igu celisaa xirfadan sawir qaadista iyo sheeko sameynta ma waxaad yaraantaadii jeclayd ba mise waa wax markii aad weynaatay kugu dhalatay runtii Farisow markii la dhahayo sheeko sameynta iyo sawir qaadida iyo content creation-ka aad u baaxad weyn yahay qofa meel buu ka soo bilaabaa ana marka hore waxaan ka soo galay dhanka photography-ga intaan kaamirada iyo waxaan ba aan soo gaarin bilowgii 2010kii xiliyadaas waxaan dugsiga sare xilligan bilaawayay bay ahayd marka afartii sano ee dugsiga sare class 1 ilaa class 4 markaas waxaan haystay telephone smartphone marka xilliga aad cusbaayo dabadda la iga keenay nin walaalkay ii keenay baan haystay marka afarta sano iskoolkayga dugsiga sare waxaan ka ahaa sawir qaade afarta sano waxa weeye iskoolka event hadii ka jidho hadii adu shaqo kasto la xiriidha kaamira hadii loo baahdo eventiyada waaweyn marka laga reebo xataa boorarka marka la daawacayo sawirada anun baa qaadi jiray oo marka qaarkood ardada حتى أنت إيمان سيد كاميرا موبايلك اللي يقاطع صور اللي وصل قال لي يسوع على نشري مركا واحد يران تاس كسب بلوتي كدمنا إن فوتوغرافي أنا صور قاعدة عندك حرفة دوغا صوب بيروبي هاي أديد وحن أوجه إن تكمل أحد صور قاعدة شيء كقول استعمل مرنت USAID I think سنة كي صور عفي حتى دي أنا خلدنين محي أحد أرتم محي كاجا ديجنت هاي أول مرنتاس والله wax badan bay iiga dhigan tahay qof walba xirfadii uu ku shaqeynayay lugu abaalmariyana waxay uga dhigan tahay wax weyn waxay ahayd 22 laakiin 23 ga abaalmarinta la bixiyay sanadkii tagay alxamdulillah waxaan kamid ahaa dadkii markaa lagu abaalmarinayay sawirada qaadeen waxaan ku tartamayay sawiro badan baa laakiin sawirka markaan ku guuleystay waxa sawir la xiriira dhanka culture-ka oo ah
inaan saaxiibanaho xoosh la yiraahdo oo hogaanka hayo awr tiro badan aan sawir uga qaaday anagoo joognay magaalada Jariiban ee gobolka Mudug marka farxad weyn bay ahayd in kumanaan sawir qaado Soomaaliya joogaan tartan intay galaan sawiradaada ay noqdaan kuwa loo xusho inay ku tartamaan marka farxad gaar ay ahayd waana muhiim dhalinyarada Soomaaliyeed marar badan waxay u baahan yihiin USAID oo mahad celinaya laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin meelo noocaas oo kale ah dhalinyarada sawir qaadayaasha iyo dhalinyarada kaleba dhiirigeliya xirfaday barteen ama ku dhiirigeliya ama tartanno u qabta ugu yaraan waxay sameynaysaa inay dadkii wixii energy u helaan laakiin Soomaaliya inta badan waxa weeye cidna cid ma dhiirigeliso qof walba asaga un baa harjada marka USAID waxa weeye kaalin fiican bay buuxisay sidoo kale waxaan rajaynaynaa adigu qayb ka tahay Somali Photo Fest in dhalinyarada Soomaaliyeed ayaguna ay u qabato kulamo noocaas oo kale ah oo sawirada lagu tartamo oo lagu abaalmariyo adal runta abshiro adiga ku watee waa waxyaabaha runtii nagu dhiirigeliyay inaanu asaasno Somali Photo Fest oo u asaasan ama ahdaafta loo asaasay ee ahayd inay dhiirigeliso sawir qaadayaasha Soomaaliyeed runtii waxa ii muuqanaysay maadaama aan sawir qaada ahaa waqti badanna filligan ku dhex jiray waxa ii muuqatay baahi badan in loo qabo in la soo bandhigo fursad loo siiyo sawir qaadayaasha Soomaaliyeed inay helaan platform ama meel ay ku soo bandhigaan sawiradooda waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan qorshaha iyagu yahayna waxa weeye inaanu helno bandhig faneed oo sawireed maartay dhalinyarada sawir qaadayaasha ay ku soo bandhigaan iyo sidoo kale in maartay dadka jecel photography-ga oo sawir qaadista dhalinyaro badan waxaa jirta Soomaaliyeed oo jecel xirfadan sawir qaadista inay bartaan marka ayaguna inay helaan meel ay ku baran karaan xirfadda oo aan fursad u siino waana runtii barnaamijkii adigu aad maartay macallinkaba ka ahayd Faris ciidan marka waxa weeye Somali Photo Fest waxa weeye asaasaheeda oo programkan asaasay annaguna waxa weeye aanu taageerano la shaqeynanay hadda ugu dambeysay bishii tagto December baa ay dhamaatay tababar bil soconay oo dhalinyaro loo qabanayay waxa weeye cid soo agaasintay oo ka shaqeynaysay waxay ahayd Somali Photo Fest oo director-ku ahaa Faris adan kaaga mahad celinayna waxa weeye saaxiib hal abuurka cusub ee dhalinyarada Soomaaliyeed inaad waxa weeye ka qayb qaadatid aadiyad waxa la isweydiiyaa runtii sawir walba qurux badan waxa ka dambaysta caqabado iyo hawlo laga maro waqti badan baa sawir qaada ahayd caqabado badan baan filayaa inaad kala kulantay sawir qaadista waayo dadku inta badan waxay arkaan muuqaal qurux badan iyo sawir qurux badan laakiin caqabado badan baa laga maraa haday noqon lahayd caqabado farsamo iyo caqabado ka yimaada bulshada dhankeedaba marka maxaad hal iyo laba nooga sheegi kartaa caqabadihii aad inta sawir qaadaha la kulantay wallahi Fariso Soomaaliya qof jooga caqabado kama dhamaato horta hore aad iyo aad markay noqoto content creators ka Soomaalida iyo dadka weliba xilliyada dambe deegaanada dadka mara oo ka shaqeeya soo gudbinta bilicda iyo sawir qaadida laftarkeeda dhibaatooyin aad u badan bay maraan oo aysan inta badan sheegin kaliya waxay sheegaan positive-ka dhulka markay noqoto anigana waxa weeye dhalinyaradaas aan kamid ahay anu waxaan filayaa markay noqoto content creation-ka waxaan ahayn inaad energetic-ga aho wax badan baa tijaabiyey markay noqoto anu fiilashan Soomaaliya ka jiro content creation-ka qaybaana tijaabin male xataa documentary aday waa shaqadeeda inta ugu badan hay'adaha un baan kala shaqeynaa documentary haday noqoto wedding haday noqoto sheeka sameyn iyo curin haday noqoto photography haday noqoto muuqaalo vlogs iyo dalxiis in laga sameeyo deegaanada music video xataa sanadii 2022 waan isku dayay marka every single side oo laga shaqeyn karo oo content creation-ka waa tijaabiyey waxaad leedahay heesaha xataa waa soo saarnay maxaa ka mid ah heesaha aad soo saartay waxaan filayaa waxaa jiray kambina mar asaasna loo oran jiray Gobson asagu heesa badan buu soo saaray laakiin aan waxaa jiray heesan lahaa directing-keeda iyo shooting-keeda iyo editing-keeda saddexdaba team waxaa jiray caawinayay la shaqeynayay uu kamid ahaa Yonisome iyo Cawaale laakiin qolkiiba inta ugu badan anaa gacanta markaa ku hayay waxaa jiray hees
waxaan ku daawacnay page YouTube-ka uu lahaa Qamar Suugaani hees waxa la oran jiray Cabasho waxa qaaday fanaanad markaa cusbayd oo heestii ugu horeyso qaraxday bay ahayd waa bil gudaheeda 2 milyan ku dhawaad 1.5 milyan 1.6 milyan daawatay oo la oranaya Cabasho dejiye Xasan baa qaaday marka heestii ugu horeysaan duubo runtii haddana gaadho xawliga jadda feedback badan aan kala kulmay markay noqoto content creation-ka iyo Somali music-ga marka waxaan jeclahay qof mar walba isku daya wixii cusub oo marka shaqeynaya oo bulshada hal abuur ah oo isku daya markay noqoto waxa ugu badan aan dhibta kala kulmay inta ugu badan waxa kamid ah Somali marka la joogo inta ugu badan YouTube-ka iyo sawirada aan qaado anigu waxa ugu badan ba waxay kamid tahay aan dadka la wadaagaba inay tahay soo bandhigida bilicda deegaanka iyo dalxiiska sanadkii tagay 2023 wuxuu ahaa sanad farxadiisa iyo caqabadihiisa wata bishii lixaad anoo dalxiis u joognaa adoo roob baaday waxaan aanay deegaanka kala bayr oo wuxuu dhow yahay Garowe wuxuu jiraa dhowr qiyaastii ma sheekay laakiin waa deegaanka kala bayr cid walba garanaysa oo Garowe u dhow oo dhanka galkacyo ka xigay dhanka koonfureed marka meel u dhow baanu dalxiis ku qaadanay muuqaalan iska duuduubana marka anagoo dalxiiskayga isaga jirnaa muuqaalan duubay marka inta badan anoo adduunka iska hormar kaamiro wax ku wado mobilka ku duuba marka meel aad u naq badan baa hay marka anoo muuqaal baan waxaan ka duubay tusaale intaan saan u qabtay baan naqa dhex geliyay anoo ordaya soo duubay muuqaalka TikTok-ayga hadda ku jira muuqaalka aad ila qurux badnaaday deetana waxa isiri ama muuqaalkan ka sii qurux badnaan lahaa hadii qof dhalinyaro ordayo kale ka duubti marka anoo foorran muuqaalka duubay xoogana ordaya halkan dhalinyaro baan iri orod ka duubaya uu orday anoo ordayay isagoo ordayay wuxuu meel marka xoogaa kala dheer buu asoo ka booday asoo aan inta taagan aan laakiin waa fooray marka meeshii baan lugta waxaan u dhufsaday aad u kala dheereen lugtaana waxaan u dhufsaday xoog marka ma dareemin dhaawacan gaaran waxa la yiraahdaa meniscus tear inta badan ba caadi website-yada ku qoranta hadduu dhaawacaasi ku gaaro ma dareemis marka hore 2 bir ka bacdi buu kugu soo kacay marka 2 bir ka bacdi buu igu soo kacay waa laftan hore iyo laftan hoose carjaw u dhaxayso kala ilaalisa inay islisaan dhaawaciga gaaray maalinka bacdi lugtiiba log bay galo xagan bisa istaagtay oo ma furi karayso marka ilaa hadda alxamdulillah doo fiicnahay laakiin xoogaa uu igu sii dambeeyaa 6 bil bay u qaadatay inaan ka bogsado qalliin weeyaa la yiri ama waa inaad long time waqti qaadatid ama waqti dheer ay lugtu soo bogsato oo haddana caqabado badan aan kala kulmay maadaama wadankiisu salahayn dhakhaatiir aad waxyaalaha waxa inta badan ku dhacaan sports-ka ku dhacaan marka dhakhaatiir sports oo murqihii wixii ajiraan dhakhtarro general oo qaabilsan lafaha laakiin wax badan ma ku saacidi karayaan marka hadda ka waran marka wali والله الحمد لله هذا أو في عنا هاي إن كستوا عندي كنا بقول fit baa laakiin deewaan soconaya ay oo shaqaysanaya inta ka dambaysan hay filnaan iska sii bogsato ilaahay baa qofka asaga waqti haduu qaatay jirka ilaahay baa u diyaariyeen oo asagu isdaweeyay laakiin waxay ahayd 6 bil in lug laga hayo oo wali ka soo gaaro calaha muuqaalada duubaya wax badan oo qalbigaaga laftirkaada aad ku dhiiran jidhay awalba marar badan hadda dib ku goranaysa aad iyo aad waliba de markii aad tahay qof maaragtay videographer ama sawir qaado wax duubayana hadii socodka ka khaldan yahayna caqabad kale weeye wallahi waxaan xasuustaa inta badan aan waxa ahay dadka aan u joojin dadka kale waxay ku dhahayaan ama ku fiirinayaan bishii 7 oo kale koobka gobolada Puntland baa wuxuu ka jiray gaalkacyo cidii markaa joogtay aragtaa garanaysa aan dhutinay baan joogay oo muuqaal ka soo diyaarinay muuqaalka xataa YouTube-ka ku jiraan ka soo diyaariyay gaalkacyo laakiin waxa isweydiin muddo adoo dhutinay hadaad muuqaal duubaysid soo video shaking gali maayo ruux maayo may inta badan waxa isticmaalnaa anaga dadka sawirada qaado yaqaan ninja walk wax la yiraahdo oo sidii ay was gaaminaysa lugtan dhutinaysa waa loogu talagalay waa ta isla soconay ani adiga ay aadana dhaysay gimbalka waa loogu talagalay lugta oo socodkaaga waxa weeye waa socodkii loogu talagalay in lagu duubo marka taasna waa maxmeesho ku jira sidoo kale waxa jira 2021 waxaan safar u galnay bariga fog barigu waa meelaha wili aan laga hayn
waxa way muuqaalo badan inkastoo hadda deegaan inta badan hadda de smartphone baa lagu duubaa laakiin muuqaalo quality leh inta badan laga keenin marka laatiikoodan safar u aadnay marka waxaa jidhay magaalo waxaan u soconnay murcanya la yiraahdo boosaasaan ka soo baxnay buruuc baanu seexanay marka magaalo u dhow geesaale la yiraahdo waxa jooga la ciidamo adugu dadka hadii dawladda iyo waxaas oo kala oo ku dhibaya marka dad mar hore tagay oo kale ay dhibeen oo khashqashaadeen oo kale waxay dhaheen waxa way matii kala marka annaguna aad ugu baahnayn marka waxaan qorsheynay inaan xil hore tagno aroor oo xilli habeen intaan baxno aroor aan tagno si aan caqabada uga badbaadno markii nala arkana aan u soo socono علشان haddii naloo sheego aysan naga soo gaari karin camal aad iyo aad marka waxaa dhacday buruuc magaalo la yiraahdo waxaanu ka baxnay 8 saac habeenimo aniguna runta fiicnaydo dabaasha ma aqaan anoo markaa barta dabaasha badda maraynaha anoo yar baan dabaasha baranaya inaan walaalanahay mar ku dhintay kadib waxa way xoogaa baqadin baa phobia ka qaaday ka dhacay kadib haddana saasay tahay maan ka cabsanayno dhalinyaranimada waxa weeye qofku wax halis u bareeraya asoon wax badan fiirinayn marka xilli habeena 8 saac habeena badda fuulnay dabaalna ma noqdo baduna waa kacsanay waxa isla soconay cawaale in la xaaji diriyo ayagu hore fariistay anu gadaal ma fariist gadaal marka way ka yaroon tahay doontu xagga u booday soo dhacaysa cawaale habeenkan la socdo gacan buu ka murgacan gaaray oo dhaawac ka gaaray laakiin wax weyn ma ahayn marka waa caqabad in xilli adoo habeena adoo raba inaad muuqaalay sawir soo qaad inaad u banbaxdin wili anagoo sii soconay doonta xoogaa biyaha soo siidaysay oo habeenkii aan ka dhureeyay haddana saasoo tahay waxa cajiib ka ahayd wax baqdina iyo wax la xiriira calashaan noloshaan adventure bay ahayd aad aan u faraxsanaa happy baan ku ahaa waxay ahayd waxa aad u la yaabadaa aad iyo waruna qofku waxa uusan ku cusub ama uusan hore u sameyn jirin xiisa gaar ah ku leedahay laakiin arinta runtii badda sheeka waxay soo xasuusisaday sidaas oo kale safar aan ugu ahayn dhanka xaabo magaalada xaabo la yiraahdo gobolka bari baanu ka soo soconay magaalada Boosaaso aan u soo soconay laashashkan badda mara aad buu u dheereeyaan leeyla calaawi baa loo bixiyay u yaqaan aad buu u dheereysaa marka waxaa jira nin saaxiib ahayn oo tiimkayga ka mid ahaa nin xoogaa buuran oo ahaa kale waa ina daawan doonaa horey buu fariistay sharciga number 1 markaad maaragtay saaxiibadaha raacisid waxaa ka mid ah inaad horey aadin horeydu waa meesha ugu boodboodka badan laakiin qofkaanan aqoon wuxuu u maleynayaa meesha ugu raaxada badan because waa gudihii iyo dhexdii waa dadka yaqaana marka gadaal bay fariistaan aniga asagu marka aad baan noogu cusbayd horey baanu fariisanay baashi marka waxay bilowday inay kor u boodo oo marna kor u kacdo marna hoos u kacdo waxyaabaa nagu dhaca waxaa ka mid ah nin buuran buu ahaa kor marka u kacday hoos u degtay waa sport gacantii buu hoos marsaday halkaasuu ka jabay bismillah intaasi waxaa ku sii dhacday inuu baashina ka duulo oo dhulka badda ku dhaco markii la damca in la qabtana waxaa adkaatay in doontii la soo saaro saxiimadii la soo saaro maadaama nin buuran yahay baddiina ku dhex jiro adagta in la soo saaro doontuna aad u dhib badan tahay in qof la soo saaro waa dhinaca kale cadil waxay noqotay runtii in asaga intii la jiido isagoo badda ku jira xeebta la geeyo xeebta laga soo saaro gacantiina la soo xiro marka waa caqabadaha runtii ilaa iyo xeebta waa la jiidiyay ilaa xeebta waa la jiidiyay caqabadaha laga maro sawirada iyo cidna ma oga sheekadaas oo kale aysan ogeyn bay kamid tahay waxaa kaloo iga warantaa xagga cilado kale waxaa jira dadka inta badan ku dhacda oo sawir qaadayaasha xagga bulshada caqabadaha lagala kulmo hadday noqon lahayd sawir qaadista xilliyada sawir qaadista ay ugu badan tahay marka la sawirayo muuqaalada aerial viewska ama droneska wax lagu qaado marka maxaa caqabada iyada ka war karta caqabada inta ugu badan waxa weeye taasna waxa rabo inaan wax yar ku daro oo ah droneska wax sahlan ma qofku asoo baran inuu kaxeeyo inta badan anu muuqaalada kaga sheekeeyaa laakiin inta badan waxa weeye aad baa la ila soo xiriiraa markay noqoto xataa xilliyadan dambe technicianka dhanka droneska waa isku baan ku biiray maadaama aysan deegaankii caqabad ka jiray tahay haddana baahi loo qabo haddana aysan wixii waqti qof geliya u baahan marka waa cilad bixiya inta ugu badan waxa lagu keenaya waxyaalo aad u la yaabti drone ku dhacday rati drone ku dhacday geed drone ku dhacday calashaan wax fudud drone-tu marka hore drone waxa loo yiri maaha wax loogu talagalay in lagu duubo meelaha dhow dhow drone-tu
simple waa inaad kicisid xagga sare markaa geysa isticmaal laakiin adoon kicin meelo dhow iyo kuma qurux badna marka aniga dhibaatada igu dhacday inta badan dadka wax ku dhaco inay ka dhunto inay waxyaalaha kala kulmaan cajiiba aniga ma kala kulmin waayo waxa inta badan waqti baan geliyay waxa isku dayay haddana alxamdulillah dadka caqabad waa kala duwan lama kulmin hal caqabad baan la kulmay hadda ka hor anoo magaalada Qardho jooga baan kiciyay maghrib ba ahayd dabayl badan baa jiray xagga saraan xoog u geeyay soo dejiyay siri dabka yaraa marka xoog bahasha ka dambayso dabayshi way socotaa soo deji way soconaysaa way sii socotaa ha haddana caqabad waxay deegaan ay taqaanid waa fiican tahay waa kala garanaysaa meesha ku socoto iyo meesha ka socoto waan fiiriyaa safari waxa ii muuqanay safari mall meel iga jira garanmaya waxaan joogaa isbitaalka weyn ee Qardho marka dadka marka wax ku dhacaan khalkhalami cawaala marka ila joogay cawaala inta badan wada shaqeynaa sheekada waxa mala cawaala inta badan ku soo noqonaya qofka ugu badan aan wada shaqeynay waxa cawaala waxay baawur noo keen baan ku yiri baashi adigu fariisat shaashan meel fariisatayna garanayno marka waxay leedahay drone to meel fine made drone haday drone taas daaran tahay waliba ilaa 20 daqiiqo way daarnaanaysaa drone kastaba hada degsinha hatta dablaan markay tahay waa wax emergency ku xiran ayadaana isdejisay oo meel isku dejisa haday haysato landina oo deegaan fiican marka wixii ugu qosolka badnaa waxay ahayd drone tiban mapkan furanay waa soo raacna waxa uu nimid meelaha fiirfiirnay reer banaanka taagan gurigi oo dhan oo ka soo baxay guriga ha baashaasi guri roorood deedkii waliba deed aad u yar oo fiilooyin badan intee soo dhaxmadho dhex fariistay sababta reerka guriga jooga dhan baa ka soo baxay ka baqaya baasha waxaan maxay ahayd ku ayaam oo u tagay waa ka soo qaadaa waxaan ku iri alla aad baasha ayada in soo dooratay marka dadkiina waxa way ka baqayaan inta badan iyo sidoo kale in caqabadaha ugu badan kala kulmayso waxa way adoo duubanayo kala hadda isbuuc ka hor bay nagu dhacday anagoo duubana music video ninkan la yiraahdo Scratch darayla ka duubana in meel deegaan aan duubanayno in qof intu soo budara maxaa noo duubasan waxa laga yaabaa beer yar oo meesha kamid inuu isagu leeyahay laakiin deegaanku aad u ballaaray meel duubaysano garanay laakiin qofkii uu kula dagaalayo soo waxba ku weydiin caqabadaha ugu badan waaye marka adiga laftarkaaga waxa laga yaabaa isku shaqadaan oo kale waa la kulantahay maxaa kala kulantay wallahi waa soo sheegtay caqabaduhu runtii aad bay farbadan yihiin xagga drone-iska waliba anigu aad baan maaragtay uga taxadarayo Soomaalidu xagga drone-iska aad bay sensitive uga tahay wax shaqo ah oo ka fursan weydid maaha inta badan uma isticmaalo aad baan iskaga dhowraa laakiin hadda dhalinyaradu aad bay u isticmaalaan oo waxaad arkaysaa qof maaragtay wax asagoo aan ujeedo weyn lahayn iska kicinaya waxyaabaha caqabadaha ugu badan oo soo laabtan waxa kamid ah khaasatan Soomaaliya marka la joogo dabaylaha marka qofka dhalinyarada ah ee maaragtay drone operator ka ama drone duulinaya waa muhiim inuu la socdo xilliga lagu jiro xilliyada xagaaga oo kale runtii aad iyo deegaanka xilliyada xagaaga runtii aad bay u dhib badan yihiin dronesku marka lagu kiciyo waa droonadu aad bay yar yihiin dabaylo badanna way jiraan sidoo kale waa inaad og tahay dabayshu dhankay u socoto waayo markii aad og tahay dabayshu dhanka u socoto waxa ku sahlanaanaysa dhanka drone-ta ka kicinaysid iyo dhanka aad rabtid inaad muuqaalka ka samaysid inaad ogaatid caqabadii aniga igu dhibka badneed waxay ahayd magaalada Bandarbayla ayaan iyadoo xilli xagaaya oo dabayl ka jirto ayaan shaqo u baahday inaan ka duubno kadibna xeebta magaalada ayaan drone-ta ka kiciyay kadibna waxa dhacday kama aanan fikirin hadda taa aan ku sheegayo ah dabaysha iyo xilliga iyo meesha u socoto drone-ta mar alla markay kacday waxay bilowdayba inay xagga badweynta ay aado anigina way adkaatayba inay remote soo raacdo waayo dabayshii baa sii wadata waa badweyn cidlaa waxa weeye ma haysto saxiimadan ku aado oo aan badda ku fuulo si aan u soo dejiyo ma soo laabanayso marka runtii aad bay igu adkaatay maalintaas waxaan isiri malaha tan tagtay waxa weeye samriga iman Allah ka siiyo laakiin qofku markii wax ku adkaadaan ba talada ku soo degtaan waxa ilaahay u waafajiyay dabayshu mar walba oo distance-igu kor jiro ayaa dabayshu kor jirta mar walba aad hoos u degtidna dabayshu way yaraanaysaa because jawiga iyo buuraha iyo baa moogtahay yarayna dugaala marka aqliyad ilaahay wuxuu waafajiyay inaan hoos u dhigo drone-tii kadibna badda biyaha markii aan u dhaweeyay
oo ay biyaha dushooda inay ku degto ay tahay ayaan waxaan bilaabay marka inaan xagga bariga usoo kaxeeyo markaas ayay waxay noqotay inaan soo dejiyo runtii caqabaduhu aad bay u fara badan yihiin haddii aan caaw dhan ka sheekayno runtii ma soo koobi karno aad bay u fara badan yihiin daroon kasta waxay leedahay dee qiimo gaara daroonada haddaad rabti inaad dabayl iyo si fiican ugu shaqaystay daroonada qiimahoodu fiican yaho mavic 3 oo kale oo dabaysha iska celin ka xilli walba iyo xagaa walba qofku inuu doorto haddii iyo sidoo kale mini 3dana waxay leedahay sansaro daroonadan inta badan meelaha ku dhaco baday minituuda sansar male daroonada ugu adag ee la wado adaa laga rabaa inaa maamusho qofku marka asagoon practical badan sameyn oo in badan ku celcelin oo aan si fiican u baran inuu intuu tago kusoo shaqeeyo waa wax aad u adag hadda baabuur haddaad kaxaysatid dee aadan horey u baranso lagama yaabo inaad shil gashi wax simbala oo macquula marka waa khasab qofku inuu isku dayo inuu barto marar badan waxaa laga yaabaa inaysan helin koorsooyin ku baxa af Soomaali ay droniska marka taas hadda waxaan ka shaqeynaa in aanu sameyno koorsooyin aan sameyno weliba la xiriira content creation-ka iyo kulli aad u sawir qaadida iyo muuqaal duubida iyo droniska marka taasna waxaan rajeynayaa in baahida aan dabooli doono markay noqoto droonadaas dhaawacoodana xala u dambeysay drone aan ka shaqeynaya in aragnayba u maleynaya marka waa wax deegaankii looga baahan yahay qofkii waqti geliya dadka inuu baro iyo dadka iyo in ayada laftarkeeda hagaajinteeda waa wax fursado jidha anoo waqti u ahayn inta badan dani kubadda in noqotaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa inay dadka faa'iideysan doonaan waxaa ba ka sharqamisay inaad aad xoog u saartid waxyaabaha la xiriira soo bandhigida bilicda deegaano badan baan filayaa inaad tagtay oo Soomaaliya kamid ah iyo guud ahaan Puntland dhulka intaad maraysay xagee kula cajiibsanayd oo runtii aad ku soo jiidatay farsorta aad ma mahadsan tahay markay noqoto Soomaaliya anu waqooyi iyo bari marka la yiraahdo north east Soomaaliya iyo علشان dhulkan loo yaqaano waxa Puntland iyo Somaliland inta ugu badan aanu maray wili conformantigin intaas baa wax ka sheegay laakiin deegaanada ugu quruxda badan aan anigu booqday markii la yiraahdo Puntland iyo Somaliland gobolka aan tagin labadooda waxa way gobolka Sanaag waana gobol aad u qurux badan runtii inta badan aan arko marka aanon tagin ba waxaan dhigi karaa labada gobol ugu quruxda badan waa gobolka bari waliba gobolkan hadda la yiraahdo Puntland markii la joogo Gardafu iyo gobolka Sanaag intaan tagay marka gobolka waxa igu wala cajiib badnaa aniga bari waa xeebo dihin علشان حتى markay noqoto nadiiftooda si u qurux badan yihiin dadku way ka ilbaxsan yihiin dadka laamiga degan xaqiiqdu waxa weeye dadka xeebuhu way ka xadaarisan yihiin dadka magaalooyinka kale ee aan xeebaha ahayn ku nool taas waa xataa waxa tagaysaa magaalo aan Burco kale dadku inta badan lahjadooda af Carabiga ku jiraba kuma waxirnaa boosaaso waxay ku xiran yihiin Yaman iyo xagaas ay wala macaamilaan iyo Cumaan ubadkoodu xagaas wax ku bartaan oo degan yihiin oo horumar iyo nolol ka sameeyaanba marka dhulkaas waa dhul gaari waayo fog markay noqoto waxa ugu badan oo hadda Soomaaliya caqabadaha ugu badan jira waxa weeye dhulka aadka quruxda badan dadku inay u dalxiisaan haddii aad macdina tagtid mar labaad inay aadid kugu adkaanaysa series runtii wax kalena ma ahanay waa wadada accesska iyo marka deegaanka tagtid noo deegaan soo jiidanay markay noqoto dhanka dalxiiska oo qofkii uu ka helay adeegyo badan marka labadaas ba meesha ka maqan yihiin iyo sidoo kale arinta ugu muhiimsan ah dadkii markii loo tago dalxiiska in dadkii aysan ahayn dad fahansan qofkii furfuran oo dalxiiska waxa laga markaa ku arkay inaad tahay qof deegaanka cusub in waxay geedayeen halka door laba door kaasiyaan ayagoo og inaad ka diideen oo baahan tahay marka deegaanada ugu quruxda badan oo aan booqday ama Puntland ba sida ugu badan waa deegaanada xeebta ku teedsan kulli ma kala dhacay gobolka bari iyo waliba gobolka Nugaal oo ilaa adu xeebuhu aad u qurux badan yahay markay noqoto Puntland waxay u baahan yihiin in la hagaajiyo kaliya wadooyinkii iyo sidii loo gaari lahaa deegaanada iyo dawladdu inaysan kaliya adeega ku ekayn inta laamiga ay gaarsiiso dadkii oo hada wasaaradahan kalluumaysiga iyo dalxiiska in xafiisyo looga furo dadkii la baro la wacyi geliyo
xataa markii dadku dalxiisayaashu booqdaan deegaanadii ay helaan dad haga oo wasaaradii dad doonaan lacag ka qaataan qof walba lacag la diyaara in dadkii la fahansiiyo meelaha danta guuda laga shaqaysiiyo dhaqaale laga sameeyo waxaan malaynayaa dawladuhu runtii deegaanada ka jira Puntland iyo Somaliland iyo xataa koonfurba dadku way hurdaan wax kale ku mashquulsan yihiin meeshii lacagta laga sameyn lahaa dadka laga hagi lahaa ma ku mashquulsana runtii aad iyo runtii waa caqabad runtii aniga laftigeyga ii muuqata Soomaaliya marka guud ahaan la yiraahdo runtii dhul aad u qurux badan dalxiiska ku habboon bay leeyihiin waliba marka laga hadlayo dalxiiska xeebaha runtii xeebaha Soomaaliya runtii aad bay u qurux badan yihiin ma kala dhacaan gobolka bari waa saa sheegtay wuxuu ka mid yahay meelaha aadka ugu quruxda badan Soomaaliya khaasatan cirifka marka la yiraahdo Garadafo ama Raas Casayr runtii waa meelaha aadka ugu quruxda badan sidoo kale koonfurta laftigeeda dhul aad u qurux badan baa jira anigu waxaan tagay runtii magaalo la yiraahdo Baraawe oo ah shabeellada hoose baan filayaa mise shabeellada hoose bay ka tirsan tahay waana caasimadda koonfur galbeed runtii waa magaalo aad cajiib waa magaalo taariikhiya dadkeeda xataa waa dad taariikh badan oo luqado kala duwan ku hadla afbaraawe luqad la yiraahdo looga hadla oo runtii markii ugu horeysay oo aan arkay ay tahay ama aan ogaadaba in dad Soomaaliyeed ay jira oo luqad kala ku hadla lahjad lama oran karo lahjad waxa la yiraahdaa markii isla af Soomaaligeeni وماي iyo maxaa tiriyahay laakiin ayagu waxay ku hadlaan completely luqad ka duwan luqadii af Soomaaliga ahayd waxaana la yiraahdaa Jamini baa la yiraahdaa wax mar waxay u soo dhowdahay waa Sawaaxiliga runtii dad kala duwan oo maartay background kala duwan ka soo jeeda ku nool waxyaabo cajiibka ku tahay Baraawe oo kale waxa kamid ah runtii aad ii soo jeetay muuqaal iyo sawir aan ka soo sameeyay jiray waxa ku yaala jasiirad yar la yiraahdo Jilani waxa jasiiradda ka dhisan lighthouse taariikhi oo Jilani lighthouse la yiraahdo oo xilli hore la dhisay dhankan Jubbooyinka kalena runtii aad bay u qurux badan yihiin oo jasiirado badan baa ku yaala Bajuni Island absolutely oo runtii Bajuni Island jasiirado badan oo baa la yiraahdaa Kayoma iyo Kuda iyo Madawa iyo jasiirado noocaas ku yaala iyo dhul barwaaqa runtii marka Soomaaliya aad bay u qurux badan tahay marka la yiraahdo dalxiiska iyo bilicda laakiin dadka Soomaalida waxa ka maqan inay wadankoodii aaminaan oo investigareystaan ayaa ka maqan runtii waana caqabadaha ugu badan oo wadanka ka jira weeye hadda tusaale ahaan dad badan baa dhalinyarada jiilkeena soo kacay maanta hadii la weydiiyo Soomaaliya jasiirada ma leedahay wax laga yaabo dad badan inay ku yiraahdaan ma Soomaaliya jasiirada laakiin wadankeena in ka badan 7-8 jasiiradood ka badan baa ku yaala oo runtii deegaano ah qaybtood oo lagu nool yahay oo dad ku nool yihiin baa runtii ku yaala marka waxaan aaminsanahay inay tahay fursad weyn oo dadka Soomaaliyeed ay haystaan laakiin aysan arkin inay ka faa'iideystaan dhalinyaradeedana waxaan ugu borinayaa inay ka faa'iideystaan waxa kale oo cajiib waxay tahay dhalinyaro badan oo xajida dhulka dalxiiska quruxda badan soo bandhiga oo socda dhalinyaradaasi inta ugu badan cidina ma maalgeliso ayagu baa socda oo Puntland haday noqoto koonfur haday noqoto waqooyi haday noqoto kulli waa la wada socdaa waxay u baahan tahay alashan shaqo ay dawladdu lahayd inta badan xooga saaraan marka waxa loo baahan yahay deegaanadaas ugu yaraan maamulada ka jira inay dadka dhiirigeliyaan oo gacan qabtaan fansiyaan oo dhahan socod annaga in maalgeliyeen dhulka soo bandhiga sidoo kale waxa weey hadda waxaan u maleynayaa markii ugu dambeysay ani adigu ama kamid ahayn Puntland wasaaradda warfaafinta dalxiiska u mahadcelinayna agaasimaha maxaa Ciise iyo waliba KCDin iyo wasiirka warfaafintaba in ay kulan soo kale noo sameeyeen oo dhalinyarada soo gudbiya bilicda deegaanka ay ku abaalmariyaan marka waa bilow fiican in la arko waxa weey wax qabadka marka waxa loo baahan yahay in dhalinyaradaasna la galab istaago taakiliyana ma ahan xataa wadanka oo dhan baa waxa weeye u baahan in xeebihi laga faa'iideysto kalluumaysiga kale Soomaaliya oo dhan xeebta ku teedsan cid ka faa'iideysto aad iyo aad hilib geel baa la cunaa iyo hilib ari marka in wadankii la maalgeliyo wuxuu u baahan yahay in indhaha loo furo la suuq geeyo oo maalgelin caalami yimaada marka in wacyiga dadka kor loo qaado dadka la tuso inay dhulkooda wax la hadda waxyaabaha saad sheegtay dhulka hadda xeebaha Soomaaliya marka tagtid khaasatan way isdhaamaan runtii koonfurta kale dadka reer xeebeedku runtii wax soo saarka badda aad bay ugu tirsan yihiin laakiin meelaha aad ka ula yaabisid waxa weeye dhulkan Puntland iyo Somaliland xeebaha ku yaala waxaad magaalooyinka xeebaha hadda timaadid
runtii dadku waxay isticmaalayaan Saacadii kalluunkii kalluun. daasadaha ahaa oo laga keenay wadamadaas Waxa dibadda cajiibka ahaa ah. Thailand iyo laga keenay ayagoo awoodi kara inay badoodii kala soo baxaan khayraadka ku jira ayay waxay isticmaalayaan kalluunka saacadaysan marka runtii waa dhibaatooyin baahina maaha oo dadkeenu runtii badeenu waa badihin una caqliyadaasaan fahmi waayo ha waxaan rabnaa moogta in si caadiya loo fikiro haddii ay badii aysan ka fogeyn kalluunkii la helayo maxaa sababaya waxaan ognahay kalluunka ay iyagu soo dataa inay dhoofiyaan maxaa sababaya marka inay kalluun kale oo dibadda laga keenay ama mid waddanka lagu sameeyo daasadaysan oo looga in dakiimka ku jiro inay cunaan maxaa sababaya iyagoo badda ka helaya runtii anigu waxaan isleeyahay waa kawahsi haddaad weydiisay dhowr jeer baan weydiiyey anigu kalluumaysato maxaad badda ula soo bixi weydeen marka waxay kuleeyihiin shidaalka nooga baxaya Kanaa ka yar. saxiimadda oo aan Waxaan badda cunana ku kula soo aadayno bixi lahayn. iyo waxaan kala soo baxayna baan isleekan runtii si waa loogu garaabi Waa karaayo logic wey. haddii shidaalkii doontu isticmaalaysa uu aad qaali u yahay way adkaanaysaa inay intay saxiimad ka haystaan oo badda fuulaan oo xabad kalluuna oo haddana kalluunka qiimihiisii uu aad u yaryahay waxaa laga yaabaa xabadda kalluunka ah ama kiiladiiba inay $dhowr tahay oo markay soo qabsanayaan kanay gadayaan may qayb kusoo darsadaan laakiin waxaan aaminsanahay horta wax marmarsiyo ma noqon karto oo qofku inuu noloshiisa wuxuu cuni lahaa la soo baxo xataa haddii uusan saxiimad shidaal ku bixin wuxuu ridan karaa dabinkiisuu ridan karaa oo la soo bixi karaa marka waa dadkeenu baraarug la-aan baa jirtaan aaminsanahay waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena waxaa jira dhalinyaro badan oo jecel filligan sawir qaadista iyo sheeka samaynta dhalinyaradaas maxaad tala ahaan usoo jeedin lahayd ama aad ku biirin lahayd khibraddaada faris horta aad u mahadsan tahay si haddeerba ka dhawaajinanay waxaa jidhay hadda koorsaanu aan ka wada shaqeyna Somali Photopost iyo hayaan annaga qayb ahaan aanu ka qayb qaadano oo dhalinyarada lagu bariyay content creationka waliba photography-ga iyo editing oo koorsada lagu bixinay qaybtood xilliyadii u dambeysay waxa weeye dhibaatadii waxa weeye qof walba oo content creation ama Soomaaliya jooga qaabka ku soo bartay buu ogyahay Soomaaliya markuu qofku joogo uu rabo inuu xirfadan barto waa xirfad aad u dhib badan oo da helayn cid ka caawisa kaliya qofku waa inuu internetka iyo qof wax ku dhaama uu helo anuguna markaa waxaan ahaa reportilla aan u ahay asal ahaan ma helin cid markaa gacaniga siisa xirfadan markaan baranayay marka waxaan wado ii gaara ama wax adigu pioneer bal yiraahdo qofka asagu wada rafaqaada marka deegaankan joogaan waxa ka jiray warbaahinta caadiga ah oo traditionalka ah oo wariyay saxaafada marka aanu kuma biirin inaan content creation noqdo qof Soomaali muuqaal iyo sawir soo saara laakiin aan warbaahin caadi u shaqeyn oo asagu xora iskiisu madax baan noqday oo taasna waxa ay baray duruufta iyo deegaanka ana isbaray ana keligii shaqaysanayay waxay noqotay wax adigu qof keligii isku tiirsana marka anoo soo garanaya rafka badan aan soo maray caqabadan ka maray marka qaar kood aan seexan jiray 3 habeenimo 4 habeenimo si aan muuqaal u soo saaro isbuuc bay ugu qaadan jireen aan muuqaal soo saaro marka dhibta anoo garanaya aan bulshadii aan Soomaaliyeed aan ka yimid inaan xirfadii aan lahaa ku celiyo waa waajib saaran marka anagoo taa ka duulana haddadan waxa gacanta ku haynaa tiim ahaan anagoo ah inaan soo saarno content creation course oo lagu barayo qofka waxa weeye kaamirada markay noqoto sawir qaadida muuqaal duubida waliba markay noqoto smartphone waliba hadda qof walba wuxuu heli karaa mobile laakiin waxa laga yaabaa kaamira heli karin marka anagoo taa xooga saarana inaan koorsooyin noocaas sameeyno iyo arinta hadda ka sheekayna daroontiina koorsooyin kala duwan oo qof walba fiilka anfacaya inuu heli karayo inaan soo saarno oo bulshada ay ka faa'iideysato ciddii markii deegaanka aan joogno nala joogtana inaan ugu yaraan ay helaan koorsooyin u badan wixii oo qofkii uu arki karayo la barayo ama gacanta laga fahansiin karayo marka waa wax aan rabo inaan xooga saaro adiguna aad qeydba ka tahay shaqooyinkaas oo laftarkaaga waa tahay dadka bulshadii raba inay wixii ku celiyaan